أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرض بغني هذا الطبنا وإلى مش ميالو موضوع أنبا مهمة إنه بدأ الله أنت وهبيك إني أفراد الدروس لن مستصر كعام حيل السنة أي من سعتي كربنا الموضوع بالبقاء هنا أي قاعدين موضوع أي هنتي كده احتمالي علماء هنتي أي نقطة عندك دون موضوع مقاصد الشريعة هي الإسلام الشريعة iyo danta ugu jirto ummadda iyo khayrka ay u keenayso marka xalay tore waxaan ku soo warnay qodobkii maalka ama dhaqaalaha caaw mawduuca aynu qaadan doonaa waxa uu ka kooban yahay laba qodob ay isugu jiraan mid waxa weeye diintu sida ay u ilaalisay nafta iyo sida ay diinta xifd diin u xifd nafs sida qofka diinta loogu ilaalinayo iyo sida nafta bani aadamku diinta u ilaalisay marka insha Allah taala waxay soo soo diyaariyeen sheekheena Sheekh Abdul Nasir Haji Ahmed isaga ayaa la baxayaa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ما بعد إخواني في الله إن شاء الله موضوع أي نعاوى كهذه دونا وهو حفظ الدين وحفظ النفس دين إلى لنتيدا إيا نفط إلى لنتيدا لبضاس موضوع بين كهذه دونا بإذن الله تعالى. لبضا موضوع وحيسوه سجليان محاضرة هراء شيخ يوسف أوغري أو كجهلي تعريفات كمقاصد الشريعة oo ku tilmaamay kulliyaadka shanta ah ama daruriyatul khamsa ama usul khamsa qodobada shanta ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu diinta u soo dejiyay in la ilaaliyo oo diinta in la ilaaliyo bay Ilaahay diinta u soo dejiyay nafta in la ilaaliyo ayaa Ilaahay shariicada u soo dejiyay aqliga in la ilaaliyo ayaa Allah shariicada u soo dejiyay maalka in la ilaaliyo ayaa Allah subhanahu wa ta'ala shariicada u soo dejiyay nasabka iyo taranka in la ilaaliyo ayaa Allah shariicada u soo dejiyay qaarkood ay mada lix bay ku tilmaamaan oo cirdiga ay ku daraan laakiin sida mashhuurka ah shantaas bay tilmaamaan labaynu maanta marka midna waa soo maray oo darsiga xalay buu ahaa labana caawa ayaynu geli doonaa wixii dhimanna culimada iga dambaysa insha Allah ta'ala ka hadli doonta موضوع وحين ودا دهين دونا هدي إلهي نقسمه إنه بالمركورة كهذا الله قضبضا شنطة أصول شاء إن شرع عدا اللوسو دتشيين إلى السهرة محل دليله محل دليله ومحل لوجه لي شرعي وقضب وحين تابن دونا محل لوجه شيء ده حفظ الدين دين إلى أنت ده محل لوجه شيء ده إنه وقضب إنه كهذا دونه وسائشة إلهي سبحانه وتعالى شرعي سأوقيا حي أما ودوينك لو إلى أرنا يو دين تم حيتهاي ينا إن شاء الله إنه كهذا دونا نفط إلى أنت دم حيتهاي
nafta la ilaalinayaa sawaatee wasaa'isha lagu ilaalinaya nafta xawlaha baynu insha Allah mawduuceenu ku koobnaan doonaa iyo dhowr kitaab oo aynu sheegi doono oo cilmigan maqaasidu shariica طلاب العلم ay ugu noqon doonaan si muwasaca haday rabaan mawduuca inay ogaadaan ikhwaani waxaynu ognahay ugu horeynta Allah subhanahu wa ta'ala khalqigan uu abuuray oo samaawaad iyo dhul iyo makhluuqaadka oo dhan bacabas ma abuurin ciyaar ma abuurin laakiin ujeedada ayuu kale yahay quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala ku qeexay wama khalaqna as-samaawaati wal arda wama baynahuma laa'ibin ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون وعلى الله سبحانه وتعالى سماوات يضل يوحى ودحيا مخلوقات كيا عيار يدير ما نان أبورين وحنو أبور حق بانو أبوري ولي الله سبحانه وتعالى الله وحليه وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا waxa Allah inoo tusaalaynayaa inoo sheegayaa in aynu abuuranahay ibtilaa layna imtixaamayo oo layna eegayo yaa amal wanaagsan yaa rabbi u hoggaansan yaa rabbi raacsan oo ateecsan oo amarkiisa fulinaya waxay culimadu leeyihiin markay ka hadlayaan mawduucan maqaasidu shariica diintan dhanba waxa loo soo dejiyay waxa weeyaan masaalixda dadka bani aadamka ah oo cibaadada ilaahay aad caabudayso ee lagu adoonsaday baa maslaxa ah wuxuu leeyahay imaam shaatibi kitaabkiisa al-muwaafaqaat la yiraahdo inna allaha wada'a ash-sharaa'i'a limasalih al-'ibadi fil 'aajil wal 'aajil ma'an ilaahay wuxuu soo dejiyay sharaa'icda diimaha uu soo dejinayo diintan islaamku ay u dambeysay kitaabka quraanka iyo sunnada rasuulka waxa loo soo dejiyay in lagu ilaaliyo bani aadamka masaalixdiisa adduun iyo aakhiraba oo maslaxadu waxay muujinaysaa oo keenaysaa noloshaada adduunka aad ku nooshahay maslaxada dhabta ah baa ilaahay ku tusaaleeyo diinta kugu sheegay maslaxada dhabta ah aakhiro aad ku helayso oo janno aad ku gaadhaysana waxa weeye diinta Allah subhanahu wa ta'ala ku sheegay aad buu sheekhu markaa shaatibi kitaabkiisa adilla fara badan oo arinta uga hadlay oo quraanka kamid ah رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل والرسل إلهي صادري ويبشارينيسا جندي بقى قفك لوجو بشارينية قفك إلهي رمية نار بقى لوجد دقيقة الرماها صادم وحويا ومصالح ذا قفك أي لوشية سيان بري قفك مركا حجة إلهي وقرن قصنا وإلهي ومحرس الله يسوع دلوان إعلام المواقعين كابن القيم وحوليه يسوى مسألة سقية فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وعليه الشريعة وحي كسلي سنتهي أو أي كل سنتهي حكم هي مصالح بني آدم كأي مصلحة أطهي ودين عدلئة ودين حريصة ودين مصلحة قفك وآخر ساسو الشيخ وهذلي إلهي علماء ليهين مركز علمك وصولها كهذليان مسائل كفقه دمانتود وحلو علينا قاعدة اعتبار المصالح ودرء المفاسد مصالح دا إيوها قفك أنفع يولسوشيتو إيوحي لبا يقول الريحو عز الدين بن عبد السلام أيها الحصول لغسو نقلية سيتاجدون سبكو الشيغيو وأشباه ونظائر كسوغان إن ما قاعدة بركيت بلو علينيو أو دين تدنبا وحا لو كيني مصالح العباد فقط أو درء المفسدة وحي هوس قليسا مصلحة ولا حقيقيو هدي مصلحة دي لحقيقيو مفسدة ماشا وكبحضي تاضي نساكو دافنو وحا الدليلة إن دينتو أي لاتيمي إلى لنتا أرمها شنطة وحا الدليلة الاستقراء وحا ليدادو استقراء محل هذا على غيابه طلبة العلم وحبي كفاهم كران شرع هذا مركز راعه وأدلة هذا جزء لا وحبط لا فيريو أيها وحل هليا إن أنا كهوس بحينين قطبات الله الشيعي شرع الإسلام
haddaynu soo dhowayno luqadii carbeed marka la yidhaahdo hadalku kalaamka carbeed saddex kama baxo ism iyo ficil iyo xaraf waa markii luqadii la eegay oo la daraaseeyey oo dhinac walba laga maray intaasay ka buuxday istiqraa baa la yidhahdaa marka tanna waxaa lagu ogaaday istiqraa iyo tatabuc imaamu shaatibi wuu kaga hadlay kitaabkiisa muwaafaqaadka mujalladka koowaad safxadda 38 wuxuu leeyahay qad ittafaqat اlummatu bal saa'iru اlmilali cala ana الshariicata wudicat lilmuxaafadati cala الdaruuriyaati الkhams wahiya الdiinu والنفس والنسل والمال والعقل وعلمها عند الأمة كالضروري ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه إلى آخر كلامه أوليها أمد وحي اسكوها فقصنتهاي إيو شريعة إيو وحي إلهي دين سود الشيء لما انتد إلى لنت الله إلى لنا إيو أمورها شنطة ولا اسكوها فقصنيه أو وباتفاق صاحب المراقي السعود قدس هذا الكاو شيغاي وحوري فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان إلى أنت شنطة لا إلى ريا قف كستو بني آدم كمد أي لازم كتاي وليبا دينه إلهي سود الشيء ودم بيعينك كتاي مركب حويا استقراء لو أوجاده استقراء ونواد دليل شرعي oo la isku ittifaaqsan yahay inuu xukun yahay laga qaato ahkaamta waxay isku khilaafsan yihiin jumhuur culimada ay qabaan inuu yahay daliilkiisu qadci miyaa mise waa dhanni inuu qadci yahay baa jumhuurtu ay qabaan waxa kale laga helayaa adillada quraanka iyo axaadiis rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi qodobada shanta mid walba daliil gaar ah waa looga helayaa oo waxaad u noqonaysaa fi suurati al-an'aam aayaadka إلهي وكل إياه قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم آيات كدن بيا آيات لقيها ليا يقوى كلبا ومثلا دينت إلى أنت وحود دليل ألا تشركوا به شيئا وحيابا الله إذن كحرمي وحاكم ده inay dinaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala u shariik yeelin allah shariik sameeyaa waa xaraan wax banaana ma naskaas u daliila waxa u daliila mesela nafta ilaalinteeda wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq hadilina nafti Allah subxaanahu wa ta'ala oo xarimay dilkeeda in xaq iyo sharci lagu dilo mooyaan nasliga iyo taranka ilaalintiisa wala taqrabu al-fawaahisha ma dhahara minha wa ma batan waxyaabaha zinada fawaahishtu waa zinada iba kamida iyo wixii la halmaala ha u dhawaanina buu Allah subhanahu wa ta'ala tarankii baa la ilaalinaya maalka waxa u daliila wala taqrabu maal yatiimi illa billati hi ahsan oo maalka agoonka يعني هؤلاء وين وكال الله سبحانه وتعالى عقلك وحاول دليل آيات وقال لي هي وآيات كامدة جبدا لعلكم تعقلون يعني سادوا عقلي ستان ومعناها تكاليفته وحيكون عيسى قف عاقلة وأرمها لقصوا هاللي اللي يسدي ده قف عقل اللي بيكسور وده ولا خطابية أحاديث ويسويهن أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه سيد حديث عبادة بن الصامت أوليه هي مالمها كم إذا يوم رسولك اللي فديني مركز سوري بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم حديثك وبيع رسولكم مركز الصحابة كلا قلي في صحيح البخاري كسجن وصحابة إلى هذا وأنا كلا بلن قال إن أنا إلهي وشريكين وأنا واحد وأنا زنيسا وأنا عروت اللينين آيات القرآن كيدومر كانوا بعدل ولا قلي يدنا وهوية والدليل لقى قادنا أيوه محن كل هذا شنطة الدليل الشرعي لقى قادنا يوي هذا ينقلني ما هذا مركب قضاء أهرية وحفظ الدين دين تإلا إلى عليه ومقصد إلهي سبحانه وتعالى ودين تأسود الشيء وشنطة قضاء وحينوران كراه أهم هذه المقاصد بوحكود عيا دين إلى الانتهاء وأنا لب المقاصد صابت وحيتهاي دينتو وشيء قفكو كبد باديو وهدي أنا قفكو دينتي إلهي كسعون
qofkaasi qof jira maaha oo Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramay qur'aankiisa dadka aan diinta ilaahay ku soconin ilaahay agtiisa qiimo kuma leh yaa ahlal kitaabi lastum calaa shayin xataa tuqiimu tawraata walinjiila wamaa unzila ilaykum waxba ma tiidin ahlu kitaabow ilaa aad tawraad iyo injiil aad oogtaan macnaha aad rumaysaan oo sifaadkii nabiyullaahi maxamed baa ku suganee waxay tawraad iyo injiil sheegtay aad rumaysaan iyo wixii laydinku soo dejiyo qur-aankii ah qofku haddaanu markaa ku soconnin diinkii ilahay agtiisa waxa kama aha waxaa alla subxaanahu wa tacaala ku shabbahayaa qofka aan diinta ku socon ee sharciga ilahay rumaysnayn qof dhintay oo meyd ah aw man kaana maytan faaxyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaasi kaman mahaluu fi ulumaati laysa bikhaarijin minha yani alla wuxuu leeyahay qof ahaaday meyd qof dhintay waa gaalkii oo kadib aan noolaynay noolayntaas markaa islaamnimadii weeyaan oo aanu nuur siinna oo markaa nuurkii dadka la dhex socda miyuu kuula mid yahay miduu weli isagu mugdii ku dhex jira ma sina weeyaan marka waxa weeye qof dhintay baa ilahay ka soo qaaday qofkaan diinta ku socon oo ilaahay rumaysnayn waxaa qur-aanku ka dhigaya oo ku shabbahayaa nimcoolayda daaq tagta qofku mar haddaanu ilaahay diinkiisa rumaysnayn waaladiina kafaruu yatamatacuuna ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكان الله سبحانه وتعالى marka waxa weeyaan qofkii haddaanu diinta ilaahay ku soconin wuxuu noqonayaa qof aan qiimo lahayn diinta markaynu u jeednaa waa diin islaamka weeyaan waxaynu u jeednaa waa addiinu alxaq almunazzalu min rabbi alcaalamiin alkhaalisu min albidaci waaltaxriifi laa mutlaqa addiin diin oo dhan uma jeedno diinta la ilaalinaya waa xaqa munazalka ah oo ilaahay subxaana wa tacala xaggiisa ka soo degay oo ka maran oo ka hufan waxyaabaha bidcada ah iyo waxyaabaha qallooca ah ka maran taas baa loo jeedaa waa ta ilaahay uu leeyahay ina addiina cinda allahi alislaam diintu ilaahay agtiisa islaamka wey waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi alaakhirati min alkhaasiriin qofka ilaahay diinkiisa waxaan ahayn diin ka yeesha waxba alla ka aqbali maayo allah markaa shayga uu ka raali yahay ee adduunka laga rabaa diintaas weeyaan diinta maxaa looga jeedaa marka la leeyahay ilaalinteeda la ilaalinayo ayaa loo soo dejiyey diinta macnaha waxa weeyaan waxaanu ka eegaynaa xagga aaxaadka basharka ama afraadda dadka iyo cumuum alumma marka la eego labadaba diinta in laga heli weeye oo waxa weeyaan marka maalan fardiga laga hadlayo xifdu diini kulli axadin min almuslimiina an yadkhula calayhi maa yufsidu ictiqaadah waa in qof kasta oo muslima diinkiisa la ilaaliyo oo wixii fasahaadinaya diintiisa laga dhowro laga ilaaliyo baa xifdu diinku imanaya haddii fardigiisa aynu u sheegnayna ummadda oo dhan waxaa la rabaa diinta in laga helo oo diintu ay noqoto ta ummadda ku dhex socota oo ay ku nool yihiin ay noqotaa la doonaya haddaynu u gudubno wasaa'isha diinta lagu ilaalinayo oo muhim ay tahay inaynu aad u dhuuxno waxaa iga hormaraysa su'aal haddaynu isweydiinoo nidhaahno oo diintu miyaanay ilaashanayn diintu ma ilaashan tahay mise ma ilaashana jawaabtu haa way ilaashan tahay ilaah baa diinka ilaaliyey ilahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun annagaa dikriga soo dejinnay annagaana ilaalinayna dikrigu waa waxyiga ilaahay soo dejiyey dikrigu waa sunnaha rasuulka iyo qur'aanka oo labaduba way ilaashan yihiin oo sunnaha ilaahay uu rasuulka ku soo dejiyey waa waxyi wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa rasuulku wuxuu ku hadlayaa waxyi weeyaan ilaahay subxaana wa tacala xaggii ka yimi waanzalnaa calayka alkitaaba waalxikma waxaanu kuu soo dejinnay kitaabka qur-aanka xikmadna waanu kuu soo dejinno sunnihii ah oo ibnu jariir atabari markuu aayadda macnaynaya wuxuu leeyahay waxaa loo jeedaa hiya sunan allatii callamkumuuha rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam wasannahaa lakum xikmaddu waa sunnaha rasuulka idin baray oo idiin sheegay ayay xikmaddu noqonaysaa marka waxa weeye waxyiguna waa ilaashan yahay waxaa kale oo rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxyiga lagu soo dejiyey oo xadiidka ah oo sunnaha ah wuxuu u yahay qur'aanka
qayb ka midihii bayaan iyo tafsiir iyo caddayn bay u tahay oo qur'aanku waxa rasuulka ayaa fasiray oo sunnaha ayaa ilaaliyey waanzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waxaanu kuu soo dejinnay dikrigii baanu kuu soo dejinnay si aad dadka ugu caddayso wixii lagu soo dejiyay oo rasuulku markaa wuu qeexaya oo qur-aankii buu fasiraya oo haddii markaa sunnuhu aanu ilaashanayn qur-aanka ma lagu intifaacaya marka qur-aanka haddii wixii fasiri lahaa oo sunnihii haddaanu maxfuud ahayn qur-aankii marka waxa weye lagu intifaaci maayo saa darteed sunnaha rasuulka iyo qur-aankuba waa ilaashan yihiin laakiin qaabka loo ilaaliyey ilaahay uu diintiisa u ilaashaday baa kala duwan hadda majaalkeedii maaha sunnaha see loo ilaaliyey hadda mawduucaynu ka hadlayna maaha iyadoo diintu ay saa u ilaashan tahay ayaa haddana allah subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo jideeyey wasaa'il la doonayo iyo waddooyin la raba aynu qaadno si aynu diinta u ilaalinno waxaynu ku soo koobaynaa 6 qodob waxaa u horeeya waxaa diinta lagu ilaaliya alwasiilatu اluulaa lixifdi اddiin waxaynu odhan karraa waa alcamalu biddiin diinta oo lagu camalfalo weeye diinta ilaahay subxaanahu wa tacala uma soo dejin in la xifdiyo qur-aanka la xifdiyo oo keli ah in sunnaha la xifdiyo oo keliya looma soo dejin ujeeddada loo soo dejiyey waxa weeyaan in lagu camal falo oo lagu dhaqmo oo diintu waa ictiqaad iyo camal oo amarada iyo midhaha la rajaynaya waxa weeye ku dhaqanka diinta lagu dhaqmayo weeye danta laga leeyahay la rajaynaya ولذلك الله في القرآن كسكوليه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا مركو ابن كثير آيات معنيني إلهي وحصادري رسوله بالهدى والله صادر بالهدى هي دين الحق والله صادر وحليه بالعلم النافع والعمل الصالح فإن الشريعة تشتمل على شيئين علم وعمل فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول هنون كان الله صادري نبي الله محمد صلوات الله والسلام عليه وعلمك النافع وحيا إلهي سودتشي بعلمك واحتركها iyo diinta xaq ana amalka saalixa baa loo jeeda shariicada marka waxay ka kooban tahay cilmi iyo amal oo cilmiga sharciigana waa cilmiga saxiixa ah oo quraanka ilaahay iyo xadiiska ah amalkuna waa ka maqbuulka amalka saalixa ah saadarteed ba waxa weeyaan salafkii aad bay uga hadli jireen waxa la yiraahdo cilmiga ku dhaqankiisa oo waxyiga waxa lagu ilaalinayaa ku amal falka sufyaan athawri wuxuu leeyahay العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل علمه وحو يريا عملك هدو أجيبه وعملك إلى ويكن كأخبري علمي يو وهو علمك مركا وسقميا أو حسليا أو علمك مركا وح إلى شنب النقونيا هديك لو وكاجور علمي كاهيا ارتحل بودي وحضرك يسا قرآن كريم آيات فربضا والله سبحانه وتعالى حريرنا إيمانك يا عملك صالحة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بقرآن كآد قبضا مركا حويا عمل كاسب الله إلانية الدين محوية مركا طبعا عملك حد الأدنى يا حد الأعلى ملايين يسمى ولماذا وكالنا وحيلين دي واجبات كواتي قيبيان وواجب عيني يواجب كفاية بالله قيبيان marka waxay leeyihiin waajibka ayniga ahi waa xadul adna waa meesha u hooseysa oo qof kasto muslim ah si uu diinta u ilaaliyo oo naftiisa ugu ilaaliyo diintii loo helo waa in furuudul acyaan waa in laga helo salaada soonka waxyaabo badan oo furuudul acyaan ayaa jiro waajib qofka ku ah xadul a'laana waxay noqonaysaa inuu waxyaabihii manduubaadka ahaa marka waxa weeyaan inuu sameeyo furuudu acyaanka wixii waajibaad ah muharramaadkina uu ka tago xadul a'la oo meesha u sareysana waxa weeyaan inuu ku daro waxyaabihii sunantay manduubaadka ah wixii makruuhaadka inuu ka tago ibn taymiya aqwaal aad fara badan baa uu fataawadiisa ku sheegay waxa kamida hadalka uu leeyahay wal amalu bid-diin lahu haddun adna la yas'u ahadan tarkuhu wa huwa al-qiyam bil wajibati wa tark al muharramat fataawada mujallad 22 safxada 166 ku sheegay amalka diinta lagu amal falaa wuxuu leeyahay meel aan qofna yaani maaragtay aan loo ogoyn inuu ka tago oo ah waajibaadka
acyaanta iyo waxa la yidhaha muxaramaadku ka tago xaddulaclaana wuxuu yidhi waa ficlu madduubaat wa tarku lmakruuhaat marka qodobka u horeeya oo diinta lagu ilaalinaya camalfal weeyaan haddii diinta lagu camalfalo waxay noo soo baxaysa koow oo fawaa'iddaynu gaadhayna ay tahay diinta waa ilaanshantahay waa ilaalinay waa qodobka labaad waxyaabahan mashaakilaadka ee laga taahayo ee ummaddu ay ka tahayso xalayna aad looga hadlay culimmadu ay aad uga hadleen waxa weeye mashaakilkaasoo dhan way xallismayaan oo hadday gaajo tahay hadday sicir barar tahay hadday abaara tahay hadday nabadgelyo xumo tahay wax kasta oo dhibaato ah oo dadku ay ka cawdaan xuluusheedu toosnaan diinta lagu dhaqmo weeye ilaahay baa damaano qaaday oo wuxuu leeyahay walow anna ahla alquraa aamanuu wattaqow lafataxnaa calayhim barakaati min asamaa dadka meelaha degan magaalooyinka haddii iimaan iyo taqwo laga helo waxa weeyaan oo ay sugnaan lahayd barakaad baanu samada war fulayn buu ilaahay subxaana watacaala laa nas'aluka risqan naxnu narzuquka waalcaaqibatu liltaqwa buu leeyahay allah subxaana watacaala wasiilada labaad oo diinta lagu ilaalinaya waxa weeye alxukmu bihi diinta oo la ysku xukumo daruuro weeyaan si diintu ay u ilaanshanto in diinta la ysku xukumo oo ilaahay diinta wuxuu u soo dejiyey inay bani aadamka tasarufka uu samaynayo ay ka hadasho oo ay diintu ka howlgasho oo ninkii daalimka ahaa in xaqiisa la mariyo oo qofkii madluumkaah ee la dulmiyey xaqiisa u qaato oo cadligii la helo ayaa diinta ilaahay u soo dejiyey marka waxa weeyaan in la ysku xukumaa waxa weeyaan waa waxyaabaha diinta lagu ilaalinayo waxaa la isweydiin karaa isku xukunka diinta la ysku xukumaya ma shay sunno abaa oo markaa dadku ay waxay doonaan ay dooran karaan maahe waa shay waajib ah oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay isagoo rasuulka la hadlaya innaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaq litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah wuxuu tabari leeyahay innaa anzalnaa ilayka yaa muxamed alkitaaba waxaanu kugu soo dejinay rasuulka ilaahayow kitaabka qur-aanka baanu kugu soo dejinnay litaxkuma bayna annaas ay litaqdii bayna annaas fatafsila baynahum bima araaka allah ay bima anzala allahu ilayka min kitaabihi wixii ilaahay kugu soo dejiyey inaad ku kala xukunto ayaanu kitaabkaa kugu soo dejinay kitaabku marka waa kitaab laysugu talagalay in laysku xukumo oo haddii laysku xukumo diintii waa ilaashamaysaa oo saddex wej baynu ka eegaynaayoo marka u horaysa xaakimka diinta ku xukumaya ummadda horta naftiisii buu diintii ku hagaajiyey oo naftiisiibuu wuxuu ka ilaaliyey laba qodob mid ka mid ah ama inuu gaaloobo kufri ku dhaco ama inuu fisqi iyo macaasi ku dhaco labadaa mid ka mid ah ayuu ka ilaaliyey naftiisa markuu xukumay oo shareecadii ku xukumay ummadda waayo ilahay baa qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima ilaahay wuu dhaartay oo naftiisu ku dhaartay oo rabbika baan ku dhaartay rasuulkii allow rumayn maayaan ilaa ay kuu xukun yimaadaanoo waxa dhexdooda yaalla ay kaa xukun dhigtaanoo kuula yimaadaan oo weliba wax cidhiidhi ah aanay naftooda ka helin oo xukunkaad xukuntayna aanay isu dhiibin isdhiib iyo oggolaansho aanay la imanin laga heli maayo iimaan marka waxa weeyaan waxaa meesha ka soo baxaysa haddii ilaahay kitaabkiisa waxaan ahayn lagu xukumo waxaa soo baxaysa laba qodob mid ka mid ah ama gaalnimo ayaa soo baxaysa oo diintii laga baxo ama waxaa soo baxaysa faasiqnimo daacadii ilaahay subxaana wa tacala laga fogaaday wuxuu leeyahay shaarix الطaxaawiya وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين وذلك بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر إلهي كتابك سوحانا هين هدي لغو حكمه
wuxuu noqonayaa ama kufri qofka diinta ka saara marba waxaa la eegayaa xaalul xaakim qofka xukunka yani fulinaya ama waxay noqonaysaa macsi iyo kabiiro ayay noqonaysaa oo hadduu caqiidaysan yahay ilaahay kitaabkiisu inaanu waajib ahaynba in laysku xukumo amase qofku inuuba door leeyahay oo aad khiyaar u leedahay inaad xeerbeegtiga ku xukuntid ama qur-aanka ama inaad qaanuunka gaalka ah ee maaragtay koodisha binaale iyo binal code iyo wixii kula mida iyo qur-aanku inay kuu siman yihiin oo aad khiyaar u leedahay amase uba qur-aanka liidayo oo quursanayo waa kufri diinta ka saaraya laga baxayo أحمد شاكر مركو تعليقنا هذا الكلام وحيري وهذا مثل ما ابتلي به الذين درسوا القوانين الأوروبية تاسو حيث صاروا تايبون كوا لو امتحامي دراسة قانون كرير يوروب oo markay de aad ugu talax tageen wax weyn kaas leeyahay kitaabka marka meelska dhigay taas waxa weey marka mas'ala aad muhiim ah in aynu fahanno oo qofku xukunka markuu fuliyo naftiisii buu diinta ku ilaashay qodobka labaad marka xukunka la fuliyo waxa imanaysa mujtamaci muslimka ahaa in ahkaamtii shariicadu ay ka dhex muuqato oo xuduudii la oogo oo shariicada ilaahay wuxuu soo dejiyay hirgasho oo cadligii la helo oo masaalixdii ay muuqato oo mashaakilaadka caalamka ka taagan oo dhan in yar ay ku xalisanto marka ilaahay kitaabkiisa la fuliyo laakiin waxa weeyaan kitaabka garbaduu baa loo hayaa waxa saddexeeyo wajka saddexaad ah haddii xukunka la fuliyo waxa imanaysa albaabku inuu ka xidhmo fikrad kasta oo inxiraafsan oo ilaahay diinkiisa ka soo horjeeda albaabkaas waa xidhmay mar haddii ilaahay subxaanahu watacaala diinkiisa u helo marka waxa weeye wasiilada labaad in ilaahay kitaabkiisa la isku xukumo ayaa diinta lagu ilaaliya ta saddexaad addacwatu ilaa hada addiin wasiilada saddexaad diinta lagu ilaalinaya waxa weeye in diinta dadka la gaadhsiiyo oo dacwadda ilaahay la faafiyo waa wadiifadii ambiyada waa hawshii nabiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh isagoo keligiisa uu qumay oo markuu faafiyey diintii markaa ay faaftay oo ay ilaanshatay oo bashar fara badan iyo khalaa'iq fara badan ilaahay subxaanahu wa tacaala soo hadiyey kitaabka iyo sunnaha aad baad uga helaysa aayaad fara badan oo allah subxaanahu wa tacaala uu ina farayo inaynu khayrka sheegno oo ummadda diinta gaadhsiinno waltakun minkum ummatu yadcuuna ila alkhayr waya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani ilmunkar waulaa'ika hum almuflixuun baa ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala ha laydinka helo ummad dadka khayrka ugu yeedha oo macruufka dadka faraysa oo xumaha dadka ka reebaysa waa in laydinka helaa waa waajib waa ficilka mudaaric oo laamur amri uu galay min siiq alawaamir baa la yidhaahdaa walamru yaqtadi alwujuub waa waajib ama kifaaya buu noqonayaa mararka qaarkoodna inuu cayn iska noqdo waa dhici karta xaaladaha qaarkood waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan buu ammaanay wuxuu ku ammaanay waa diinta ay faafinayaan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cani ilmunkar watu'minuuna billah waa ka alla subxaanahu wa tacaala يعني waxaad tihiin ummadtii ugu khayr badan baad tihiin waxaad khayriyadaa ku hesheen waxa weeye shaqadaa fulinaysaan macruufkaa dadka u sheegaysaan xumaha dadka ka reebaysaan arrintaas marka waxa weeyaan diintaa ku ilaashamaysa oo haddaynu qodobkaa saddexaad khulaasayno oo nuqaad baynu ku khulaasaynaynaaadoo waxaynu leenahay fi dacwati ila allaahi tacliimun liljaahil marka diinta ilaahay la faafiyo dad badan oo aan aqoon diinta u lahayn baa jahliga ka baxaya dad badan oo diintu aanay gaadhin baa diintu gaadhaysa oo diintii fahmaya halkaa waxaa muuqatay diintii inay dhowrsan tahay fi dacwati ila allahi kashfu shubahaat allatii tuhaaru xawla addiin marka diinta ilaahay la faafiyo waxaa meeshaa ka baxaysa waxyaaba badan oo bushi ah ama shubahaat ah oo dad badan ay diinta ka fidinayeen baa ka baxaysa meesha diintiyo waadix ah oo cad oo sida caanaha cad halkaa ka muuqata baa soo baxaysa diinta faafinteeda waxaa la gaadhayaa oo imanaysa tafwiitun lilfursa calaa acdaa'i alislaam in la waasiiyo fursada kuwa cadowga ah ee diinta ilaahay ka hor imanaya kuwaas jaanis inaanay helin oo marka diintu faafto intishaarto oo ummadda ay dhex socoto oo khayrku aad u faafo waxaa imanaysa waa meesha ka yidhaahdaan meel dayax ka soo baxay xidig wax kama ifiyaan
wixii maaragtay ahlu baatil oo dhan waxay maaragtay biriqinayeen oo dhan meesha ku baqteeya ila nuurka iyo khayrka baa faafay marka diintu waxa weeye waa iftiinka weyn ee la doonay caalamka inay ku faafto في الدعوة إلى الله وحكسغا تحقيق لشمول الدين وعمومه في الزمان والمكان والأشخاص أو دين إلهي مركا لفافيو وحدبوا بيس الدين تيني شامل تاي أو مجالات الحياة نوش أو الملكس أي تابانش دينتو وملكس أي كهاد ليسو وحموقنا يسا إن دينتو أنا كوكوبنين زبن وإلى وقت النبي الله محمد صادر إلى قيام الساعة دين تنا رأينا شقيسه وأشخاص كم كوبنا فلان يا زيد يا عمرو يهبل يا بني فلان يو منطقة لا يكون كوبنا والدين أشخاص تعالم كلنا رأينا قاط وحيرة اللي بدون يو قلوا ربنا دين عيدا عندك كجلي يسوي وهو مكانكم أحدنا ودينتو ملكسته وعالم كائن كسرة تبع إلهي ربا تاسام مقنسة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وكاله سبحانه وتعالى وآيات كلام كل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ورسولكم رسالة سعام بيهت وعالم كلام بالله صدري مثلا حديث قعد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة حديث إمام البخاري في كتاب التيمم وكوكاني oo de nabiga waxa loo soo diri jiray qoomkiisa laakiin aniga ummadda oo dhan baa lay soo diray ayuu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa lay soo dhigay doo soo diray ummadda oo dhan ayaa lay soo diray rasuulku sallallahu alayhi wasallam saasuur laakiin nabi kasta qoomkiisa ayaa loo soo diri jiray wasiilada afraad oo diinta lagu ilaalinayo waxa weeyaan al-jihaad fi sabiilillah ilaahi subhanahu wa ta'ala jidkiisa oo lagu jihaado وإلى دين تلا إلى وجهادك ووسيله لجو جاره إلى أنت الدين والدعوة أن مركز شقين يسوع وإلى هاي دين كانوا برهالك يا هاي دين كوينوس كالصعدة وعالم يكون مشاحة هذه مركز قالت ترى سعون ما يشد دين تو عليه وان صعدة ملك استينا قالن دون يا إلهي أدون كان سكرها أنا إرهبا ملك استينا صعدان ربا هدي مركا عدي ترى ما يسعون ما يسد ودقح لقوا تروني دقح ما ولا سكلي حني مركا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله والله دقح الله ما يمركا أو إلى فتنة أن لقيهن فتنة ذو أي ما بدنا وحكوفة سنة ابن جرير الطبري وسوق جورنيو شركك أو شركي مركا هيمنة كويس تأدونك مركا اللي جواله ويسعون يسع تمعنى وحويان دينتو جهاد بالغو إلى دينتا أو وصايشة كم إذا لغو إلى نيو ويو حلو جهادا لتكون كلمة الله هي العليا كلمة إلهي إن كرنا قطه وهي حكمت جهاد كالله سبحانه وتعالى وجدي في تنتو حين نقول كرتادو كره يعني مثلا إلى أنت ضد بدن وقارض وأي كفتنين يعني مدى دينتا ويدبيان ويكعنتك ويان وحوي إذا قديد وحيابها جهاد كما قال قدوده وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا مركب حويان جهادكم هو وسيله لو قاري الدين إلى الانتهاء وإلهي سبحانه وتعالى حكمتي هي سننتي سو حكمتها إن سنة تدافع إن ضدك أهل حق دينتا إلاليان أو نفع بحيان أو مار بحيان إلهي أود حليها إنه ضدك قرن الإسلام كدقه لكن مدون أو سنه سماها عينكاس إلهي وحور ربا ضدك دينتا رميساني إن دينتو دا إلى شدان أو هرقليان أو هلكا أي نقطه وحلي هذا هلقا يلولن بين أهل الحق وأهل الباطل ساس بإلهي دون ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض وحول الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن حق مركا لبا سوود احترا مرنا وهيل كبا تاغن وإلهي سبحانه وتعالى نصر يبوسيي مرنا وحوي امتحان ابتلاء الله مرينيا وحويان ولي ما رغتي اسبابه لوغو نصرين لها بان موقنين marka laba soo dhaxeeya mar lagu imtixaanayo iyo mar maxaan ku dhaadibka nasriga uu joogo nasrigana siyaabaha loo helayo waxa weeyaan oo diintu marka ay u ilaashamaysa xagga jihadka marka ay ku hadlayno waa in ummaddu marka ay toosnaato oo asbaabtii ay qaadataa
asbaabtii nasriga lagu helayey oo ay mudataa in ilaahay subxaanahu wa tacaala u hiiliyo ilaa la helo asbaabtii hiilka la isugu hiilin lahaana waxa weeye nasri iman maayo ilaahay mu'miniinta hiil buu u ballan qaaday innaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati dunya wa yowma yaquumu lashhaad laakiin waxa weeye wuxuu u baahan yahay in la helo asbaabteedii la qaato taasina waxa weeyaan waa wasiilada jihaadka oo isna lagu ilaalinaya diinta oo labadiisii noocba ama jihaad dalab ha ahaado oo la nashrinayo diinta ama jihaadu dafci oo cadowgii duulaanka ah ee ummadda islaamka kusoo dulay ha ahaado labaduba waxay noqonaysaa waxa weeyaan ilaalintii diinta oo markan jihaadu dafciga uu yahayna diintiina waa la ilaalinaya ehelkeediina waa la ilaalinaya waxaa kale oo qodobka shanaad uu noqonayaa raddu lbidaci walahwaa waxyaabaha diinta ilaalinteeda ka mid ama wasaa'ilka lagu ilaalinayo wixii ahlu bidcaa ama ahlu ahwaa radintoodu waa shay ka mid ah wasiilo diinta ilaahay lagu ilaalinayo oo wax kasta oo khilaafsan maxaan ku dhahay axaadiida rasuulka ama hadyigii rasuulka oo khilaafsan oo bidco ah waa in la radiyaa laga hortagaa waayo rasuulku wuxuu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun ayuu yihi rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah iqaamatu xaddi ridda riddada xadkeedoo la oofiyey inkastoo xukunkoo la isku xukumo shareecada ay soo hosgeli karto laakiin marka diinta la ilaalinayo qodobkaasi waa qodob sidiisa in loo taaga muhiim ah oo riddadu waa masale khatar ah qofka hadduu diinka ka baxo shareecada in la keeno oo la fuliyo sharciga lagu fuliyo arrintaas waxa weeyaan diinta ilaalinteeda waayo rasuulku wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh man badala diinahu faqtuluuhu qofka diintiisa bedela dila buu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaa laga yaabaa dadku riddada inay wax weyn fog u arkaan qofka diinta caaya waa murtad diinta ilahi waa ka baxay qofka rasuulka caaya diinta ilaahay wuu ka baxay bannaanka ayuu ka joogaa qofka malaa'igta caaya diinta ilaahay buu ka baxay wanaasaa loo fahmaa riddadu meelo fog ma jirto waxa weeyaan waxyaabaha diinta lagu ilaalinayo waayo waxay noqonaysaa qofku markuu saas sameeyo iska ridoobo suu doono yeelo ama diinta uu ka baxo qaar waxay ku odhanayaan hebel wuu kiristaamoobay wax kiristaan leeyahay ma jiro qof muslim ah oo intuu islaamnimo ka baxo kiristaan gala shareecada islaamka ma taqaano murtad baa loo yaqaanaa istilaaxaasaa shareecadu u taqaanaa oo cidi ka asmici mayso muslim baana haddana waxaanahay masiixi la iska dhegaysan maayo waayo halkaas baab bay furaysaadoo riddadaasi waxay keenaysaa inay noqoto tusbax afka laga furay oo nin waliba markuu doonaya anigana wayla macaanaan weyday way iskaga tegaya marka waa in la afjaar marka hore cidi kuma qasbin mar haddaad soo gashay kama tegaysay qoorta lagu dheeraynaya waxaan qodobka aan ku gebagabaynaynaa laba qolo oo xil weyni saaran yahay oo diinta ilaalinteeda xil weyni ka saaran yahay baynu ishaaraynaa labadaa qolo iyadoo ummadda oo dhan diinta inay ilaaliyaan xil ka saaran yahay culimmada waxaa saaran xil weyn oo ilaahay diinkiisa inay ilaaliyaan oo faafiyaan oo bidcada radiyaan oo khayrka sheegaan oo naseexeeyaan waa arrinta la doonayo إمام أحمد مركو جهمية الدين وعولي الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى هذا الله أضفي عن أيوكا الله يالو إلهي وكم هذين أيوه ضدك أهل العلم إلهي أمضى دحد مركز طبع oo baadinimada dadka intay ka kaxeeyaan hanuunka geynaya oo ku sabraya dhibka soo gaaraya oo kitaabka ilaahay dadka dhintay ku noolaynaya oo dadka indhabeelay tusaya xaqa kuwaas aad marka uu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu mahadinaya imaam Ahmed marka culimadu waa xuraasu shariica شريعة كو إلهيني وي إن يكون تدان بالدنيا ابن تيمية وحليه فالمرصدون للعلم عليهم للأمة حفظ الدين والتبليغ فإذا لم يبلغوهم علم الدين أو ضيعوا حفظه كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين ولهذا قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وحليه هي dadka ahlu cilmiga ah xil baa saaran inay diinta ilaahay ilaaliyaan oo gaarsiiyaan haday diinta gaarsiin waayaan ummadda oo waxay noqonaysaa inay xifdigiisii dayaceen arintaasina waa min a'zami dhulmiga ka ugu weyn weeyaan aayadaas markaa keenay oo dadka xaq qarinayaaba inay khatar weyn ku sugan yihiin inay toobad keenaan mooyaan qolada labaad xukaamta weeye dadka muslimiinta madaxda u ah xil weyn baa diinta ka saaran
oo mas'uuliin waxay u yihiin inay ilaahay diinkiisa ummadda u ilaaliyaan diinta inay ilaaliyaan oo murtadkaynu ka hadlaynay cidda xukunka ku fulinaysa waxa weeye ciddanka xukunka haysa ummadda u haysa waxa weeyaan abubakar sidiiq radiyallahu canhu markii ay ridoobeen majmuucad dadka ka mid ahay waxa weeye waa kii markiiba ku kacay oo la dagaalamay man badala diinahu faqtuluu isagoo fulinaya ayuu dagaal ku qaaday ولذلك بقى شيخ الإسلام ابن تيمية فتاويديسا مجلد 14 صفحة بقول يلبا وحليهي سواء كهض لي ردداس هدان لفون حكم كذا دبك كيمان كره فإنه لو لم يقتل ذلك لكان الداخل في الدين يخرج منه فقتلوا حفظ لأهل الدين والدين وحليهي هدي أن للدلين قفكي صوغ على وحصمين الدين تونس كقبحه مركا دلكي سو حكوسغان إن دين الله إلاليو أهل كذا الله إلاليو معناها سكوسغان بولي waxa weeye marka dadka mas'uuliyiinta waajibaadka saaran sida aymadu kutubtooda ay ku qoreen waxa u horeeya xifdu diinta ilaalinteeda ولذلك ما وردي أئمة الشافعية كمده كتاب كيس الأحكام السلطانية صفحة 12 وحليه والذي يلزمه من الأمور العامة 10 أحدها حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة إلى آخره يعني عليه وحاكل لازمة حاكم كمسلم كاها إنه أمور بدن فليو أي كم التهي دين إلى الانتيدة دين إلى الانتيدة وحلك سهرا ويانا ولي وحيليهن فالمقصود الواجب بالولايات وابن تيمية سياسة شرعية كل شيء فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا وحول المقصود كاللغة تشيدو شغوين كإيو مارتي مامولادا مسلمين تحل الكودو وإصلاح دين الخلق ساسا وحكم يمام كل شيء دين تخلق دين تودين لها جيو oo haday taa waayaan buur ummadii way khasaaroodeen haba loo nicmeeyo oo adduunka barwaaqaday doonaan ba haysteen khayrkay doonaan haysteen mar hadii diintii meesha ka maqan tahay oo diinkooda aan ilaashanayn waxba arintaas ma tarbiisa buur intaan ku dhaafno qodobka koowaad oo ah xifdu diin xifdu nafs nafta ilaalinteedu oo waxyaabaha diinta ilaahay u soo dajiyay oo ilaalinteedu waxay noqonaysaa shariicadu waxay samaysay wax allaaliya wixii maslaxa naftan ugu jirta ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala soo jiiday wax kastoo mafsadaana waa laga riixay oo nafta macsuumada ay loo jeedo ee la raba waa naftee waa nafta islaamnimo ku ilaashan oo muslim ah waa nafta gaalkii dhimiga ahaa oo jizya ku ilaashan oo jizyada bixinayay waa nafta yani maaragtay ammaan ku ilaashan gaalba ahaadee ammaan iyo ahdi ku jira nafaha noocaasa ayaa la ilaalinaya oo shariicadii aanay ogolayn in wax la yeeleeyo naftaas shariicadu ay ilaalinayso wasaa'il 8 ama 9 bay iska dhahdeen ka gaadhno baynu kaga hadlaynaa oo shariicadu u dajisay si loo ilaaliyo naftaas qiimo weyn bay ilaahay agtiisa ka leedahay waa nafta muslimadda ee la doonayo ilaahay inay caabudo marka waa la ilaaliyay aad baa qiimo weyn loo siiyay waxa u horeeya تحريم الاعتداء عليها إن لو حد قدبه أي الله سبحانه وتعالى حرمه وإنت صار نص أو كتاب القرآن أي سنة رسولك كسبان أي إلهي كل شيء دلك قفك مسلم كأخطر مديسة يوحكر تمية يينو من كبائر الذنوب وياهي ذنوب تواوين أو قال نما مرك اللي جاي ما دو باس كلابات إيمانية أي إلهي كل شيء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما والله أنت خطر في ذفير شن وعيد بإلهي كل شيء قفك مؤمن كا سعمد يؤد لي وهو يبالك سوى جهنم وكواريا إلهي وعراضي وصدق وهو نعضشي وكل عضي عذاب وين بولي الله سبحانه وتعالى وارن أضو خطره رسوله صلوات الله وسلامه عليه اجتماعي ويناي كلنك ويناي ما ننتي منا ومسلمين تلهد لي باق دير بكسوتشيدي وليا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا حديث أضو دير oo dhiigiina iyo maalkiina iyo cirdigiina arrimaha soo dhameeyay dhexdiina waa ka xaraan
sida maalintan iyo bishan ay xurmo u leedahay wasatalqawna rabbakum fayas'alukum can acmaalikum falaa tarjicunna bacdii kuffaaran aw dulaalan yadribu bacdukum riqaaba bacd aad hadal culus buu sheegay rasuulku oo leeyahay rabbigiin baa la kulmi doontaan waanu idin su'aali doonaa ha u noqonina gaalo qaarba qaarka kale qoorta ka gooyo oo dhaqanka gaalada qaarba qaar kale qoorta ka gooya muslimiinu isdila maaha saas baa rasuulku ula hadlay salawaatullahi wasalaamu calayh xadiidka bukhaari baa wariyey kitaabu lxaj baabu lkhudba fi ayaami mina buu ku keenay waxaa ka mid ah axaadiista rasuulku ka hadlay zawaalu dunyaa ahwanu cala allahi min qatli mu'minin bigayri xaqin adduunkoo dhan oo zuula ayaa ilaahay agtiisa uga fudud in qof mu'min ah xaqdarre lagu dilo saasuu rasuulku yihi salawatullahi wasalaamu calayh gaaladii iyana mucaahidka ahaa shareecadu way diiday oo waa kii rasuulku man qatala mucaahadan lam yarax raayixata aljannati wa ina riixaha la yuujadu min masiirati 40 caaman qofkii mucaahadka ahaa oo waxaa si caama u soo gelaya ama kii dimiga ahaa jasiirada laga qaadayey ama kii dowladda islaamka iyo dowladda kale ee heshiisku ka dhexeeyey ama qof muslimi qof uu ammaan geliyey ama qof fiisa waddanka ku yimi oo dadka islaamka ay og yihiin ama fardi mar hadduu cahad iyo ballan ku jiro oo xitaa qof shakhsiya ha u shaqaynayo shaqo gaar ah loo keensado waxa weeyaan ballan buu ku jiraa shareecada islaamka waa xaaraan qofka dilaana raayixada jannada urin maayo ayuu rasuulku leeyahay salawaatullahi wasalaamu calayh waxaynu u gudbaynaa qodobka labaad waxa weeyaan sadu daraa'ic almu'adiyati ilaa qatli nafs waxaa la xidhay oo shareecadu ay xidhay waddada ku gaadhsiinaysa dil naf la dilo oo waddadii oo dhan baaba la xidho oo wax kasta oo keenaya in uu fal wax dil ah keenayo oo dhanba waddadeedii baa la xidhay si maxaan ku dhahdaa qofkan bani aadamka naftiisa loo ilaaliyo saa darteed baa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay man xamala calayna silaaxa falaysa mina qofka hubka noo qaada oo ummadda islaamka ah isagoo doonaya inuu amaargagixiyo ama la dagaalamo ama fal qaado qofkii hubka qaata annaga nagama mid ah buu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo halkaa fitanta iyo baa laga hortegayaa qaadiska hubku dee wax ku dil iyo baa imanaysa marka waxa weeye taas baa ka mid ah waxaa laga hadlay aadaabta hubka loo qaado si qofkan bani aadamkaa jirkiisa ee muslimkaa loo ilaaliyo ayaa rasuulku salawaatullahi wasalaamu calayh in xangaruufasho ama yani xoqasho wax yar oo taabasho ah hubkaa qof muslim inay gaadhsiiso ayaa lagu diidan yahay markaasaa rasuulku wuxuu leeyahay xadiiska bukhaari iyo muslim ay wariyeen من مر بشيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما يعني قفك صومر مساجد يدا يسوق يدا يسوق فلادي وطا oo ha qabto caarada hore nisaalku waa birta afka hore ay ka galiyaan ha qabto si aanu maxaan kale qofkii muslimka u dhaawicin buu leeyahay rasuulku salawaatullahi wasalaamu calayh bal aadaabta islaamku ilaalinayo waxaa rabaa inaadan qofka muslimka ah aadan waxba yeelin oo haddii dee waagaa fallaadha iyo seefa iyo waxaas ay jireen hadda qoryahan iyo hubkana waa ka khatarsan yihiin oo si yar bay markaa iskaga qarxanayaan waxaa rabaa ammaanka in la xidho waxaa rabaa xabadda dhuunta inaan la gelin haddii mujtamaca dhex marayso qorna wadatid waxyaabahaasoo dhan baa mamnuuc ah shareecada islaamka oo dadka islamka saan dhibaato loo gaarsiin waxaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiid ku leeyahay idaa salla axadukum sayfan liyandura ilayhi faaraada an yunaawilahu akhaahu falyaqmidhu uma liyucطihi iyaah yani haddii midkiin seefta uu galka ka saaro uu rabo inuu eego kadibna uu rabo walaalkii inuu dhiibo galka ha geliyo isagoo galka geliya ha u dhiibo waayo waxaa dhici karta markaad u dhiibtaba dee hoo tidhi inaad markaa juqsiiso oo markaad wax ku yeelaysatay ba iska suuragala marka waa inaad galka gelisaa qofkii muslimkaa baa la ilaalinaya waxaa ka mid ah inaan la ogolayn hubka in lagu fiiqo qofkii muslimka ah oo rasuulku salawaatullaahi wasalaamu caleyh wuu diiday inaad qof xaggiisa ku fiiqdid ama baastoorad ama qori ama wixii dee huba oo dhan ba inaad ku fiiqdid oo xadiidku wuxuu ahaa man ashaara ilaa akhiihi bixadiidatin faina almalaa'ikata talcanuhu xataa yadacahu wain kaana akhuuhu liabiihi wa ummi rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wuxuu leeyahay qofka walaalkii bir ku fiiqa oo bir ku fiiqa oo saa ku yidhaahda malaa'igtaa nacdalaysa ilaa uu ka tago haba ahaado walaalkii aabbihii iyo hooyadii ay dhaleen arrintaas waa arrin khatara waxaa la ilaalinayaa qofka muslimka inaad wax gaarsiisa lagaa ilaalinaya waxaa rasuulku sii tilmaamay isagoo xadiid kale cillada sheegay
maxaa suuragal ah markaad saa yeesho waxaa suuragal ah wuxuu yidhi rasuulku laa yushiiru axadukum ilaa akhiihi bisilaax fainahu laa yadri axadukum lacalla ashayطaana yanzicu fii yadihi fayaqacu fii xufrati min annaar waxaa dhici karta shaytaan inuu kaa shaqaysto oo gacantaadaba ka tuuro oo markaa qofkii ku dhaco oo adiguna dee aad qofkii disho si yarba intay ugu dhacdoba qorigii wixii ugu dhacaan hawba ay ka tidhaahdo oo adiguna dee markaad ku halaagsanto waxaa la xidhay oo la mamnuucay caytanka iyo afxumada oo ah asbaabaha keeni kara in dadkii markaa culloobaan oo wax isla yeelayaan nafta ilaalinteeda ka mid tahay oo soomaalidu waxay tidhahdaa haddaan af xumaan gacnimo xumaato afku hadduu xumaado dhibaata soo socota rasuulku wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh sibaabu lmuslim fusuuqun wa qitaaluhu kufrun cayda qofka muslimkaa la caado waa faasiqnimo daacada laga baxaya la dagaalanka lala dagaalamaana waa kufri buu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa rabaa marka in caytankana la iska ilaaliyo oo qofku wax wanaagsan waalin kula hadlo waqul licibaadii yaquulu latii hiya axsan ina ashayطaana yanzagu baynahum ina ashayطaana kana lilinsaani caduwan mubiina waxay leeyihiin sabab kasta oo keeni karta qofkii macsuumka ahaa ee dhiiggiisa shareecadu ilaalisay in lagu dilo keeni karta shareecadu way xarinta oo fuqahadu waxay leeyihiin sababna waa lagu damaanaya qofkii sida mubaasharaba loogu damaanayo imaam nawawi minhaajkiisa oo kale walow taraxa qumaamaatin wa qushuura batiiqin biariiqin famadmuuna cala saxiix haddii ninkii waxyaabii kudaafadaha iyo maxaan ku dhahdaa baalkii xababka qalkiisii iyo ama hadduu doonoba dee muuska galkiisii iyo waxa uu shaarica ku tuuro oo qof markaa wax ku noqdo waa damaano qaadaya waxa weeyaan waayo sabab baad ula timi aad muslimka wax ku yeelaysay wuxuu leeyahy ibnu qudaama wayajibu الضamaanu bالsababi kama yajibu biاlmubaasharati faida xafara bi'ran fii طariiqin ligayri maslaxati اlmuslimiin aw fii milki gayrihi bigayri idnihi أو وضع حجرا أو حديدة أو صب فيه ماء أو وضع فيه قشر بطيخ أو نحوه فهلك به إنسان ضمنه أرمها الصوت من وحويان وحي السبب أقفك لي مادة بيو كشوة شارعة وعلى قفة وحكون نقضي وحيليه مثلا ابن قدامة ومذهب الحنابلة وضامن dhagax buu dariiqa dhigay waxbaa lagu noqday waa daamin waa laga mas-uul buu ka yahay bir buu ka taagay shaarica wuxuu ka qoday ceel buu ka qoday aan maslaxadda muslimiinta ku sugnayn ama meel aanu looga raalli ahayn buu ka qoday oo idan la'aan uu ku qoday arrimahaasoo dhan wuu damaano qaaday waxaasoo dhan waxaa looga jeedaa qofkan muslimka ah in la ilaaliyo in ama qofkan macsuumka ah in la ilaaliyo naftiisa waxyeele inay soo gaadhin waxaa ka mid ah oo shareecadu jidaysay si nafta loo ilaaliyo qisaasta oo ilaahay qisaasta wuxuu ka dhigay nolol walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab qisaasta waxaa idinku sugan nolol dadka caqliga lahu oo nolol baa ku sugan oo ummaddu marka ay shareecada fulinayso qofkii qof dilay shareecada la marinayo oo dadkii dhiigga lahaa ay qaadanayaan xukunka sharciga ah waxa weeye ummaddii nabadgelye ay helaysa sida nolosha ugu jirtaa waxa weeye qofku markuu ogaado inaan la bixinaynin ee hadduu wax dilo isna maxkamad la hor keenayo oo shareecada lagu fulinayo maxay idinla tahay naftiisa hore u fakeraya in badan buu ka fakeraya intaanu tallaabo qaadin waxaa kaloo shareecadu qisaastaas marka la fulinayo oo ciddii wax dishay mooyaane cid kale aan loo tallaabaynin waxay noqonaysaa noloshii baa meeshaa soo baxaysa oo dadkii si nabadgelyo loo wanaagsan bay markaa isaga noolaanayaan isaga soconayaan waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyi sulطaanan falaa yusrif fi lqatl oo falaa yusrif fi lqatl waxay noqon kartaa bay leeyihiin in qofkii dilay qof aanan u dilo lama ogola waxaa ka mid a qisaasta oo nolosha ay ugu jirtaa dadkii qofka laga dilay ee qaraabadiisa ahaa ee xaqa u lahaa dhiigga waxa weeyaan way bogsanayaan oo waxaan dareemaynaa qofka aabbihii la dilay ama walaalkii la dilay cudur baa galay waa murugaysan yahay ciddii tallaaba wax u geysatay inuu ka argoostuu rabaa hadduu waado kuwa un tolkiisa ayuu rabaa inuu maxaan ku aana u raaco waxyaabaha dhaqankeena waynu naqaanaa laakiin sharcigii wuxuu ka dhigay qofkaasi markuu qisaastii fushado waxa la urbogsi iyo maaragta raalli ahaansho iyo deganaansho iyo xasilooni buu helaya arrintaas waxyaaba tajruba aan lagu arkay taariikhda ay soo martay baan idin xusuusinaya maalin maalmaha ka mid a nin baa nin dilay markuu ninkii dilay ayaa kii dilay baa la soo qabtay aduu qolyihii qofkaa la dilay dhiiggiisa lahaa sharcigii bay qaateen aduu xukunkii baa lagu fuliyey halla qisaasaa la yidhi qoladii baa gacanta loo geshay markii qoladii gacanta loo geliyey ninkii dhiigga lahaa oo aabbihii la dilay qoladii markaa meesha maraysay baan ka mid ahaa waxaan bal orodoo qisaastii fusho oo waan kaa dabamayna markaad dhammaysato waxa weeye bal nagu sin markaasaan ku imanaynaa
waa soo daba soconnaa gaadhigu xogaabu naga horreeya ninkii markuu qisaastii fuliyey oo ninkii dilay gacantiisa ku dilay waxyaabaha yaab kale ilaa haddaan maskaxeeda ka bixin waxay ahayd ninkii markuu dhintay maruu dusha ka saaray isagiina waa dhacay isagoo hurdoo khuurinayaan u nimi ninkii la dilayna waa la qisaastayna waa meyd oo go'baa saaran kii dilayna waa hurdaa waa khuurinaya bal idinku ka warrama arrintaa waxyaabaha yaab kale waa yaab bay noqotay waxaan markaan waraystay ninkani muddadii hawshani ku socotay oo malaa dee dhowr iyo 20 maalmood ah walwal baa jiray oo ninkaa xidhan iyo saaxalkiisu noqonay shawniin hurda isu keenaya maaha hawshiisi markuu fushadayna si fiican buu isaga dhacay nin meyd ag yaalo hurda waxa weeye marka ilaahay subxaanahu wa tacaala shareecadiisa iyo wanaagga ay leedahay baad ka qaadanaysa waxyaabaha nafta lagu ilaalinayo oo shareecadu jidaysay waxaa ka mid a qofkii inaan qisaas lagu fulinaynin ilaa maxaan ku leeyahay bayina cad la helo xujo cad oo bayinadaas waxay noqon kartaa ama qofkii inuu qirto inuu isagu qaatiliyo wax dilay ama in shuhuud cadli ah oo cuduul ah oo shareecadu ay markhaati gal ka dhigtay oo 2 nin ah haddii qof wax dilay uu yahay waxa weeye in la helo ayaa sharciga dhigaya arrintaasoo dhimaadkaynta la adkaynaya waa nafta ayaa la ilaalinaya waxaa ka mid ah oo shareecadu ay ilaalisay oo nafta lagu ilaalinayaa nafta muslimka ah waa la damaano qaadaya oo aad baa ihtimaam qofkan muslimka ah loo siiyey oo marnaba dhiiggiisu hadur noqon maayo qofkii muslimka ah la dilay oo haddii ciddii dishay ay qisaasatay maxaan ku dhahdaa haddii ay noqoto diyana waxa weeye dee diyuun baa laga qaadanaya qofkii ama kii waa loo qisaasay ama diyaa la qaatay xataa diyadii marka qofkii camdiga ahaa waxyaabaha si loo ilaaliyo inaan qofna qof ku tacadiin xataa marka la cafinayo oo diyadii lagu cafiyey oo kale maalan waa la adkeeyey si aan mar dambe ninkaas usoo raaqraaqin oo soo kicin waxaa la leeyahay waa la adkaynaya oo inagu dee hadda dhaqamo iyo xeer baynu iskaga soconnaaye shareecadii waxay leedahay horta waxa weeye isaga ayaa xoolihii laga rabaa ee qabiil iyo caaqilo waxa leeyahay ma jiraan wixii camdi ahaa oo waxa la leeyahay diyadii waa xaal oo wax dib u yaala maahe waa magdharaareed meesha ka yidhahdeen degdeg baa lagaga rabaa adeerkeen weeye xisaabta muddo lagu qaban maayo si dhaqso leh wuxuu haysto dhan baa dunta laga maraya laga soo jafaya oo waxa weeye muddo loo dibdhigi maayo si dhaqso u keen baa la leeyahay oo waa muqallado xagga sinniga iyo maxaan ku dhahay xooluhu say kala yihiin waxa weeye way ka duwan yihiin sidii diyadii khad ahayd إمام النووي كتاب كيس الروضة وحليه الدية تتغلظ في قتل العمد من 3 أوجه فتجب على الجاني ولا تحملها العاقلة وتجب حالة ومثلثة ثلثهن حقة وثلثهن جدعة و40 خلفة معناه وحليه 3 وجبة لقيت كيدو بدو حويه هرتا نينكي وحد لي هدي العفيي ولا قولوا العفيي ماشان طلع ذو حراج عيني سما جرتي حولي هذا لغا ربا حولك هرتا وين كنت لغا مرا inagu dee shaqada ma naqaana wax dilay daalimka kaasaynu markaa u gurmanaynaa kii khada ku dhacayna waxa laga yaabaa sharcigu farayna in la bal meelaha iska hogaan qaado oo dadka iska dhaxmar in la yiraahdo waa dhici karta kii daalimka mujrimka ah ee la rabay in maaragtay aan loo kaalmayna waynu ku garab taaganahay shaqeena haysta ummadda Soomaaliyeed waxa weeye marka xoolihiina waa laga rabaa degdeg baa looga rabaa waana 3 meelood baa loo qaybinayaado yaani 30 qaalmood oo 4 jirgala iyo 30 qaalmood oo maaragtay 5 jirgala ah iyo 40 geel oo rimay ah intaas la sooto waxa uu ka keenay ninka hadda waxaas laga sugaya marka hadii la cafiyo goorma waxa keeni doon oo leeyahay tol kula bixinayna ma jiro ordo meelaha ama qorof qaado dadka meelaha socsoco saddex ku leeyahay xaalad adag weey ninkaas talaabo dambe qaadi maayo marka waxa weeye sharcigu si aad iyo aad ah ayuu naftu u ilaaliyay waxa kamid ah mesela in waxa kamid ah siyaabaha loo ilaaliyay تأخير تنفيذ القتل في من وجب قتله إذا خشي من قتل الإضرار بغيره قف كان دبا لوغو دغيا قصاصته هدي او كدي باطونيسو نفكله كدي باطونيسو نفكله هدي كدي باطونيسو lagu fulin maayo qisaastii dib baa loogu dhigaya macnaheedu muxuu yahay haweeney uur leh ay wax disho see laga yeelaya wala iska deynaya ilaa naf baa uur meesha uur baa jira naftaas la badbaadinaya oo qisadii qaamidiyay saxiix muslim ku sugnayd dad garanaysan oo haweeneydii zinaysatay ee rasuulka u timi arintii sheegtay rasuulku dhowr jeer maartay ka warwareegay waxay tiri fa wallahi inni la hubla
يعني أوربان لها بيتر مركا رسولك وحوري إما لا فاذهبي حتى تلدي هدي آدم إسقارينين ووحي آدم وحبا إساستورين هذا آدم بنانك صوريكتي وهذه الشيء لا أنت تكأمر يسأل ويسكتك فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة مركي أم الشيبة يضم مرير قوة علمه بيت كانت وقف مسلمين وطوات كانت بهيت قالت هذا قد ولدته وكان علمه بيت رسولك كان أدرى قال اذهبي فارضعيه حتى تفطميه أرضو نوتشيو إلى أن تتكقرين صلاتك فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز markii ay naaski ka gurisay ayay keentay iyadoo ilmihi jabiyaro kimisa oo gacanta ku haysto faqalat hada ya nabiy allah qad fatamtuhu wa qad akala at-ta'ama wa ka ilmihi wa naaski waan ka guriyay wa ka sunnadina waa cunaya fadafa'a as-sabiy ila rajul min al-muslimin thumma amara biha fa hufira laha ila sadriha aw ilmihi intuu ka qaaday oo nin u dhiyay muslimiinta kamida ayay yidin god ha loo qodo halkaas lagu arjuway حديث كان صحيح مسلم بكسوية ابن قدامة وحليه مركا لا يقام الحد على حامل حتى تضع ابن المنذر يقول إجماع بصونا قلنا أجمع أهل العلم على أن الحامل لا ترجم حتى تضع إلى إلكته قدوك التضبات وحكم إذا إلى أنت نفط انقصاصته أي بنانته إن لقى عفيه والشريعة أي أقولاتي تدكي ديك له إني عفين كران ونوع نفتي مركا دي قفكي بخيار للسيي قفكي وليدمكها أي خيار للسيي أو الله حليه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة أو دي قفكي لو عفي من أخيه ومن دم أخيه سوى واحد ليه هذا نوارة لما الإسلام هو بيحن ساسا مركا آيات وإلى وانا التخفيف يا فضيدين إلهي سبحانه وتعالى حقي كاطي حتى داوع يدي أيها هدو قدونا قفك وصدق لي سنكرا فمن تصدق به فهو كفارة له وكان له سبحانه وتعالى وحكى رسول الرسول صلوات الله وسلام عليه حديث أبي داود كسوغان من حديث أنس بن مالك قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو في صحيح أبي داود بكسوغان حديث كاس وحلي أنس بن مالك رسولك أرين كصابسا قضيات ماركتي قصاص اللي ما كانين إلا عفو بمركا أصوبانك عفو من اسكع عفو أنا سامر دافدا أو يسوي شيء رسول صلوات الله وسلام عليه مركا عفو يقول يسوع وشيء مركا شرعي كمدا وإن لو إلى اليوم لا إلى أن يوقف كنفتيسا وشرعي أي بناينسو وحكم قدوم كسديدات إباحة المحظورات في حالة الضرورة وحيابية حارانت أها baktiga iyo wixii la mid ah baa qofkii loo baneeyay marka naftu ay khatar noqoto naftu markay khatar noqoto si nafta loo badbaadiyo oo naftan qiimaheeda loo dhowro ayaa bakti loo baneeyay oo ilaahay wuxuu quraankiisa ku leeyahay inma harrama alaykum almaytata wad-dama wa lahma al-khinziri wama uhilla bihi lighayri allah faman idurra ghayra baghin wala 'adin fala ithma alayhi inna allaha ghafurur rahim marka qofkii loo dibgeliyay isagoo aan taadi xad gudub samaynaynin waxa weeye way u banaantay inuu cuno baktigi mar hadii uu nafdhaw yahay ad-daruraatu tubiihu al-mahdhurat bayidahda وحول إمام النووي مجموع مجلد السجارات صفحة 440 أو تكملة ويه واتفقوا على جواز الأكل إذا خاف على نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف عن المشي أو عن الركوب وينقطع عن رفقته ويضيع ونحو ذلك وحيسكوا وافقين إني بنان تهي هدو قفكو نفتي سوغبقو هدانو عنقاتشو أما إنو صعدك كقابيو سفر ببيه وصعدته أما قاعدتك فوريتانكيسا وكبقو أما رفقد الله سعودية وسيد هذا الله إله وقاري كريم يسيد أنت صورا وحي وبناينسا قفكي إنو عنو وحي محان كل هذا بختقاها سي نفتي سوبت باديو وهلكا وحاكم وغنيسا إن دمرها وحي محرمات كاي بنايين للضرورة يكون بنايين إلى علماء قاركود بأي لهدين بقى هديو عنو وهذا بقى ونفتي سي ومركا هلاقو وصار كل انتبه ninkaas waxa weey wabaqaatu nafsi ba qarkood fatwoodeen heerkaas ay gaarsiin samata ibn qudama kala soo naqni athrab sheekh liyaa wuxuu yiri abu abdullah oo maaragtay ahmed ibn hanbal ba waxa la su'aalay aan mudar yajid almayta walam yaakul ninki waa dhibaataysan yahay maytay waqti waa haysta laakiin ma taaban
marka wuxuu soo naqliyay qowl Masruuq ibn al-Ajda al-Hamadani Abu Aisha oo taabici ahaa hadal uu fatwooday uu soo jeediyay kana wuxuu yiri man durra falam yakul walam yashrab dakhala an-nar wa ilahi ba wuxuu yiri wala tulqu bi aydikum ila tahluka ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إلى هيركاس بكارسيين وحكى الله قادنا يا مسألة داس إن أي واجب تيقفك هذو مضر يهي dadka marka iyagu inqaadin kara inay inqaadiyaan waa shay marka jaracadu ay waajib ka dhigayso waxyaabaha aynu ku soo gabagabayna waxa kamid ah in nafta lagu ilaalinayo ilaahay wuxuu jideeyay dadkii inay isdaweeyaan oo qof hadduu xanuunsado si naftiisa loo badbaadiyo inuu isdaweeyo tadaawo cibaadallah fa innahu ma min daa'in illa walahu dawaa waxaynu ku insha Allah ku soo khatimaynaa mawduucan oo maqaasidu shariica laba qodob ka mid aynu ka hadalnay ama kuliyaadkii shanta laba qodob ka mid aynu ka hadalnay ama umuuman maqaasidu shariica kitaabada ugu qiimaha badan ee anigu aan kulli arkay waxa ka mid ah kitaabka al-muwaafaqat al-imam ash-Shaatibi oo runtii kitaab asal u ah مسائل كنوعا قفكي ربا إنه مركب بحثين إيو كزيادة إنه كراديو وحكمل مقاصد الشريعة لابن عاشور كتاب دكتوراه لو قاطع آدو قيمة بدن أيات شيرة الدكتور محمد سعد بن أحمد اليوبي اللي هو قري واللي مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية ورسالة دكتوراه لو قاطع وبحث في عنها إن شاء الله إنها سبانسكاس وقابني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت